madaxweyne ka saameyn batay farmaajo oo Soomaaliya ka soo ifbaxay kaas oo si weyn looga hadalhayo baraha bulshada waa muuqaal xiiso badan ee higa tagin ila daawilaa dhamaadka waxaad ogaan doontaa wax badan oo ka qarsoon asxaabtaada u shargale follow ilegn waa inoo muhiim mahadsanid Bilaal Bulshaawi waa madaxweyne ay sameysteen dhalinyarada Soomaaliyeed ee isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan TikTok-ga ee jooga Muqdisho kaas oo qaaday tilaabo saameyn weyn yeeshay asaga iyo koox dhalinyaro asxaabtiisa ah ayaa toddobaadkii la soo dhaafay Muqdisho uga amabaxay sidii ay u caawin lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee abaarta saameynta weyn ee ku yeelatay ee ku barakacay deegaano ka mid ah gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland kooxdan dhalinyarada ah ayaa hore u qaatay lacago laga soo aruuriyay barta TikTok loo yaqaano oo loogu talagalay in dadkaasi lagu caawiyo lana soo bandhigo xaaladda saxda ah ee dadkaasi ku sugan yihiin هذا إلهي يقول مقلة إلهي قصر دبك وحنا قصار معاه أفريقيا قصار لها حتى وحنا كريستميزت نجاسة قطع وحنا بدبك قصار تنا حتى مقب جلمتك جلمت بلاي الله يقدك والجقال حراش الله والله نفع الدود هل عاقة وتبرشد اسمار كيسا برشد أكبرتها dhalinyaradan uu hogaaminayo madaxweynahooda Bilaal Bulshaawi kuma socdaan qaab qabiil mid dawlad iyo sifo ummadda beegarimahaasi balse waxay u istaageen badbaadinta walaalahooda Soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u soo jeedaan caawintooda iyo ka tagay guryahooda ay ku haysteen nolol raaxo leh waxay qabteen shaqadii ay gabeen farmaajo rooble iyo kuwa kale u dhaartay inay u adeegayaan si daacad ah balse kuraas raadis xilligan ku mashquulsan ما شاء الله وحواي راشينك حلا قدام بيسا ديجينا عبد انت سيحينا مركو حواي ان شاء الله بريا راشين كان بيحينا فرح سنة عودنا ولا عليهن لسيحنا ما شاء الله dadkan ayaa badankood waxay abaarta ka leysay xoolihii ay haysteen taas oo markii dambe kaliftay inay ka soo barakacaan guryahooda si ay u helaan waxay nafta ku xishtaan ka soo barakacay wadanka xuduudka Soomaaliya Itoobiya dhaxooda sax oo xoolihii ay baabeen sax dadkiina hadda wuxuu ku sugan yahay maxaan ku dhalaayay oo iyo wabiga aan baahida oo kula soo daarnay sax meel qurdubeen aan joogno sax alxamdulillah rabbil caalamiin dadka laakiin aad buu baahi iyo dhibaato u haysata sax iyo qorax aad ugu dhacaysa farmaajo ayaa xilligan ku mashquulsan soo saarashada xildhibaan lacag badan oo ku bixinayo halka dadkii mudnaa qarashaadkaas in lagu bixiyo ay baahi iyo oon u geeriyoonayaan halkii canshuurtooda lagu celin lahaa dhalinyaradan ayaa waxay soo bandhigeen awoodooda iyaga oo muujiyay in dadka Soomaaliyeed ay iyaga is caawin karaan oo ay ka maarmaan in hay'adaha shisheeye gacanta u horsadaan taas oo ah wado kale ay u fureen dadka Soomaaliyeed haddaba daawada sidee u aragtaa dadaalka ay wadaan dhalinyaradan mise ka wada qayb qaadan karnaa gurmadkan qaran